asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. fadlan saar subscribe kadibna riix gambaleelka mahadsanid. daawadayaal markale kulan wanaagsan. xubintan waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixin dheer oo ku aadan qoysaska dagaalamayaasha kooxda daacish ee Soomaali Swiilishka ku sugan gudaha dalka Syria oo loo soo wareejin doono Soomaaliya. dagaalamayaasha Swiilishka asalkooda ee Soomaaliya qoysaskooda ku sugan xerada Al-Hol ee dalka Syria ayaa lagu howlinayaa sidii loogu soo daadgureyn lahaa dalkooda ee Soomaaliya. warbaahinta afka carabiga ugu weyn dalka Sweden lagu magacaabo Al-Compass News and Media website waxay website-kooda ku qoreen maanta in laga yaabo qoysaska Swedish-ka asalkooda Soomaaliya ay ka tirsan kooxda Daesh in loo soo wareejiyo gudaha dalka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inuu hore u ogolaaday baaq ka soo yeeray ehelada qoysaskaasi si carruurtii haweenka Soomaali Swedish-ka ku xiran gudaha dalka Syria loogu soo daadgureyn lahaa gudaha Soomaaliya. sida laga soo xigtay maamulayaasha Kurdishka ee maamula xerada Al-Hol ee ku taalla waqooyiga bari dalka Syria waxay diiwaan gelin in 30 ilaa 40 qof asalkoodu Soomaali yahay lagu hayo xeryaha maxaabiista iyo qoysaska kooxda Daesh. kalabar dadkaas oo haween iyo caruur kuma aysan dhalanin gudaha dalka Soomaaliya. warbaahintu waxay kaloo qortay in danjiraha Soomaaliya jooga xarunta qaramada midoobay ee magaalada Brussels Ambassador Ali Saciid Faqi xaqiijiyay inay dowladdiisa ogolaatay qorshe lagu doonayo si wadajir ah la isku keeno haweenka iyo caruurta Soomaali Swedish-ka iyo muwaadiniinta kale Soomaalida ee haysta dhalashada dalalka kale ee Yurub haddii aysan cidna rabin iyaga oo aysan Yurubiyaanka ogolaan doonin soo laabashadooda. waxa uu madaxweynaha Soomaaliya go'aansaday in haweenkii caruurta doonaya inay iskooda ugu soo laabtaan Soomaaliya ay soo laaban karaan ayuu yiri Ambassador Faqi. warbaahinta Al-Compass News and Media website ee laga dalka Sweden waxay kaloo qortay inaan la hubin in Soomaaliya xaqiiqdii awoodi karto howlaha daadgureynta ee dadkaasi inkastoo uu danjir Faqi sheegay inay ogyihiin inay howl culus tahay arrintaasi loona baahan yahay inay dowladda Sweden iyo maamul goboleedka Kurdishka ka wada tashadaan sidii dadkaas loogu soo daadgureyn lahaa Soomaaliya. danjiro waxaa kaloo uu xaqiijiyay inuu soo weli wax jawaab ah keenin dowladda Sweden oo ku aadan daadgureynta qoysaska asalkooda Soomaali yahay ee ka tirsan kooxda Daesh kuna xaniban gudaha dalka Syria. warbaahinta Al-Compass waxay kaloo qortay in xaaladda liidata ee ammaanka Soomaaliya ay caqabad ka dhigto dargelinta howlaha daadgureynta dadkaasi in laga yaabo inay waqti dheer qaadato. ugu dambeyntii warbaahinta Al-Compass News and Media waxay muujisay in mowqifka dowladda Sweden arrintaasi iska caddahay una arkaan inay suurtagal tahay in agoontii caruurta haysta dhalashada Swedish-ka ee ku jira xiriirka ku yaala gudaha dalka Syria loo soo wareejiyo dalka Sweden halka dagaalamayaasha waaweyn ee ka tirsan kooxda Daesh ay waajib tahay in dib loogu celiyo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan. daawadayaal warbixintan waa naga taa waxaad kala socoteen daalacan miidiya.